soo badbaadiyo waxaad ka warsugaysaan ciidanka gaar hayay intuu iimaanayo oo laydinka soo furanayo meesha laydinku haysto waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa oo aan baaqna u dirayaa walaalaha aynu dan wadaagta nahay ee daraawiishta oo dan iyo deegaan inaga dhaxeeyo in aynu shir isugu nimaadno kadib markaynu inagu shirno shirkaas oo aynu uga tashanayno sidii sool iyo sanaag iyo cayn iyo qayb ka mid ah gobolka bari aynu maamul inoo gooniyo ugu samaysan lahayn oo ka mid ah maamulada Soomaalida ee dawladdeeda ka tirsan waxaa jirtay nin baa wuxuu ku maahmaahay wuxuu qabay baa la yiri islaan ayuu qabay markaasuu ka min yaray islaantiisa hore waxa la oran jiray xaana mid kale oo maana la yiraahdo buu guursaday ninku wuxuu ahaa nin garhareed oo garkiisu timo yar oo cirraah ay leeyihiin xaana u timaado oo tinta cirrada ah bay ka riftaa si loo yiraahdo de oday waa nin dhalinyaro maana gurigeeda markuu tagana tinta madow bay ka riftaa odagii baa maalintii dambe muraayad isku fiiriyay markaasuu wuxuu arkay garkiisii oo teelteela wuxuu yiri ma bayna xaana wa maana daa'at li xaana yani xaana iyo maanaba waxa nagaga baabay garkeygii uu ku baabay marka waxaan leeyahay reer sool iyo reer sanaagow sidaad maalin walba garowga iyo hargeysa u taagneedeen ayaa dantiinni ku luntay ka tashada aayihiina ka tashada intaasaan ku soo gabagabeynayaa waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taan axmed cabdo u dhiibin waxaan rabaa inaan idhaahdo baarlamaankii maanta tagay meeshii dhoobo lalahaa waa lagu riday lama ridin xaq darrada ahayd 5 nin baa ka qayb galay sida warku nagu soo gaareen 5 ninna innagay waxay noo yihiin marka qof walba wiilkaagii la hadalo waxaad ku tiraahdaa annaga adna ma tashay tag meesha wixii ciilan qabay iyo wixii caraan qabay ciil ma kula dhacay marka u horeysa waxaan tacsi u dirayaa dadkii meesha ku geeriyooday dhamaantood inamadii meesha ilaalinayay dadkii kale oo shicibka ahaa meesha wax ku gaadheen in ilaahay jannadii ka waraabiyo innagana iyo eheladoodiina samir iyo iimaan uu ina ka siiyo wixii halkaa ka dhacay waa waxaynu wada filaynay gabadh baa la yiri faruuran baa la yiri geel baa laga baxshay baa lagu bixiyaa la markii hore waa filaayay bay tiri waxa la geel baa laga baxshay waxay tiri waa filaayay geeli waa la keenay baa la yiri waa filaayay subaxdii baa loo tagay waxa la yiri geeli noqoy waxay tiri faruurtaydu markay muuqato in geelu fashil maayo waa ogaa reer maakhirow dadka waa ka ilbaxnimo horreeyni xadaarad soo jireenaynu lahayn dhulkeennu waa ogtihiin wuxuu ahaa dhul qani ah innagaa laynoo iman jiray kan doonayaa inuu dhoofo qurbaha u dhoofo laas qoray buu iman jiro ka dhoofi jiray waa ogsoontihiin oo boqolaal sano ka hor baa shakhsiga Yurub soo gelaya haddaanu wadan inuu laas qoray ku dhashay aan la aqbali jirin oo maraakiibta la saari jirin waxa la yiri laxwal bi shilalka ay isdhigto baa lagu qalaa Soomaalidu waxay tiraahdaa kitaab galkiisii loo diiday Ilaah baa sayaxa baday inaynu maanta inuu garow sida laynoo ku galo waa waxaynu filaynay sababtoo ah maalinta Puntland ay ka dhacdo siyaasad qallafsan oo la isqabto oo dhibaato soo fool saarto waxa lagu sadqeeyaa warsangeliga inaga layna ku sadqeeyaa waa habeenkii ugu horreysay kelmadda warsangeli afkayga ama qabiil ka soo baxo sababtoo ah waxa la yiraahdaa iyaga fudud iyaga hal eriyo si Puntland u badbaadinayna layna ku badbaadiyaa laakiin maanta ma dhacayso ma aqbalayna wixii halka ka soo baxay waxaanu raacsanahay oo taageersanahay dhoobo war ma taageersanahay dhoobo isaga ah oo sharciga ku fadhiya waxa maanta la sameeyay waa baadil miyaanu aqbalnaa ma aqbalayno ma aha maanta caatifad
معها ما أنت هذا كان كهد لنا وهذا الصحة أو حقيقة إن أنا نقبل وحي على كصوب حي ما أنت صدقني بدلنا يكون بدبادل هيد ودني ودور كيني ويا دور كي يقول ما أنا صدحني وأنا لكدمي صدح جرسو ما هين ولا إنك كدمي ما أنت ودور كودي وهي سبادية مركب وحنا لا يا هاي إنه أنت شنو إنه ضدك كحدارة الريني وإنه ما بالهانت ما أنت إنه هرجيسة يفردينه معها هذا ترى هذا هرجيسة حمام بتيدو تالا هذا عاو إنتي ناس وإنتي جرو وسع بيني سات كسر قرطان أنا وكسر قادنا يا وإنه بدن وايو إيه ما وحي سمايستين مامول أي عالم كأوكبر يتجان إنك ما أقوم بدنا وإنك ما دول فينا أوكتين دول كانوا ودهب وحنو لين هاي بدي كلون كبينو لين هاي بيره بينو لين هاي حوله بينو لين هاي بورتين وأوكتها وبور غنية وعلم الله من هاي مركا أنت إنه هاي سنة أقومتنا ولين هودتك وك أقون هريني حضارتنا ولين هاي ونصيب ضرو إن صدح كين سعيلسو هل كان صدح أبرود كين سعيلسو هل كان صدح كين سعيلسو إنه دربان بيلايسن إنه تونو marka waxa idin leeyahay hadalkaydu ku dheerayn maayo ilaahay ha keen isu soo jeediyo ilaahay hayna waafajiyo qulubteen ha isu soo jeediyo sababtoo ah weenu dayacanahay hadeen mandaqadaanahay hargeysa iyo bayna kala goostay iyo Puntland waxaan leeyahay qolo lagu sheegay aaranjaan iyo jinnijaan oo wax lagu sheegay waxa cuntada marka la cuno dhuuntay martaa hadaan duurtu jirin iyo caloosha tagtaa warceel daahir baanu fadhinaa hadda garow fadhidaan duuntii naga fadhina marka hadalka waxa ku soo gabagabeynayaa reer maakhir ha noolaadeen reer maakhir ha guuleysteen reer maakhir lahay ha istuso goobadaareed ha noolaado ilaa iyo inta u dambaysa ku barbar taaganahay wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi